waayahay malaaqa xamar iyo xamardaye malaaqa xaaji nuur maxamed cali ayaa maanta noo suurto gashay inaan wareysi ka qaadno asiga oo ka maqan magaalada muqdisho howlo shaqo oo safara uga maqan magaalada ayaan arrimo dhowra ka wareysan doonaa malaaqa xamar iyo xamardaye waa la socotaan inta jeer had iyo jeer malaaqa wuxuu ka hadlaa nabadda iyo maslaxada ummadda Soomaaliyeed malaaq marka hore soo dhawow bal sideed u aragtaa shirweynaha beesha karanle uga socda magaalada muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim maxamed daahir waa ku salaamayaa waana soo dhaweynayaa su'aalaha ama warbixinta aad rabto in aan wax ka iraahdo karanle waa qabiil ka mid ah qabaa'ilada Soomaaliyeed qaasatan beelooyinka Hawiye sanbuuqadoodii waaye ama waa curadkoodii maxay ahaday waana sax inay shirayaan shirkooduna waa iswaraysi qabiilka shir ballaaran oo noocaasa beelooyintu iskuguma aysan imaan waayihii dhowaa maxay ahayd laba dowlad oo isbedeshay ma aysan dhicin beeshu shir saa u ballaaran iskugu timaado marka sidaas aawadeed in la shureeyo la iswareysto aad bay muhiim u tahay waana maxay ahaday dhaqan ahaan iyo diin ahaan in la iswareysto dadka wax ka dhaxeeyaan aad bay u fiican tahay beeshuna waa u wada jirtaa wax maxay ahaday khilaafana ma jiraan mid hore hayana ma jiraan kaliya waa in xog la kala helo hal dhabana lagu arooro waa intaas kaliya waa gartay maadaama shirka mid muhiimad noocaas xambaarsan oo yahay malaaq adigoo ah malaaqa xamar iyo xamardaye maxaa shirkaas uga baaqatay oo aad uga maqan tahay waa mahadsan tahay maxamedow ninka la yiraahdo waxaa la yiri gunugeed kuma kulantaa la yiri maxay ahaday qabiilkuna ma ahan inta meesha fadhido in la eg in la sii eg in la sii eg ayaa banaanka jirto waxaana la jiro shirka waxaa ku jira aniga qalbigaygii yaa ku jira shirka ku jira qalbigaygii qolofkaygii yaa banaanka shaqo uga maqan marka taasaan ka leeyahay waa gartay waxaa kaloo jira beelo Soomaaliyeed oo shirkan markii uu bilowday kadib ayaguna shirar noocan oo kala yeeshay dawladda shaki weyn ayaa soo gudagalay in dawladda laga shirayo ayay u ekaatay arrintan qabaa'ilo badan ayaa sidoo kale shirahaya shirarkan tirada badan oo idinkoo karanla aad bilowdeen maxay dawladda u dhimayaan waa mahadsan tahay dawladdan horta ninka la yiraahdo waa dawlad ayada ruuxeeda ka soo jeeda deegaanadan dadkeedu inay is arkaan is warsadaan kadibna ayada haddana wareystaan ma aysan dhicinba dawladdu waa cusub tahay hadda dhaway dhalatay ayada allow noo dhalideedii lagu jira wixii hadda ka horreeyay marka goglahanu waa iska daalgoys maadaama dawladdi la rabayo ay dhalataa waxaa la rabaa ninka la yiraahdo waxaan kuugu xiray ha kaa dhashaana dawladiyey shalay waxaan ninka la yiraahdo dhala kuulahay mugaad dhalahayday ha kaa dhashaana waaye shirarkan magacoodu wax xumaana maahan wax dawladda wax loogu dhimaa maahan ayadaa lagu kaabaa ayadaa furayaal loo yeelaa ninka la yiraahdo qabaa'iladan iska daba hadlaaho qof walba iyo ninka la yiraahdo moobilkeeda geed la hoos tagto ama derbi la hoos fadhiisatay oo ay rabto sheegaysaaba la rabaa inay dhammaadaan sida aad hadda ninka la yiraahdo ragga akhyaarta mursada aad ka maqlayday iska reed hadalka qof kaliyeed qayle inaan beri kadib la dhageysan warkeeda wax badan oo dawladda anfac ahaa ka soo baxa kaliyana hadda karanle waxaan u malaynaa in warkiisuba kooban yahay asoo curadaha yaraan dawladda xogaa yaraan ay ka dhigtay had yaraan nooga dhiga kaliya waaye dawladda eedaas inay soo jeedjaan waa u malaynaa
ceelbuur iyo galhareeriyaa la rabay in dhulka laga bilaabo qabashadiisa kadib la yidhaahdo tolweyne waa xuroobaye aan aadna dhulkii yaraana soo xureynaa la rabay waxaan u malaynaa intaasoo la gafay aad dowladda lagu canaanahoo la leeyahay gadaal ka qurxiya waxa kaloo soo herana waxa waaye ninka la yidhaahdo maxay ahayd xamar iyo xamardaye maadaama ay beeshu tahay magac keligiisa lama rabee manficiisa aawayna waa taalo waa agtaal wax marka dowladda ninka la yidhaahdo culaysiha maahan kanu dowladdana waxbuu tusaalaynaa labadaas qodob aa ugu muhiimsan maxay ahayd beeshu waxay ku lahayd dowladnimada beesha masaafuraa laga dhigay niman baabuurkoodu rogaa laga dhigay hadda kasoo degto lugta boor ku leh mana aha waad aragta ninka la yidhaahdo gobolkii iyo meelihii ay wax ka ahaan jirtay ninka la yidhaahdo mahay ka joogto marka taa iyo ninka la yidhaahdo beelihii kala xurayntooda in loo wado ninka la yidhaahdo gulfiha gadaal ha noo jiraan ceelbuur iyo galhareerina xoogaa walxay reerka gelisay shidaalada iyo biyaha laga joojiyo xureynteedana gadaal ha noogula dhigo taasna xoogaa walaacay dhalisay marka madaxweynehena waxyaabahaasaan tusaalaynaynaa iyo dowladdiisa sharafta leh waxaana kuu sheegaa beeshaanu madaxweynaha maalintii uu guulaystay waxay soo martay beeshaan waa la og yahay anigaan hadda kula warramaa halqabsigayga wuxuu ahay maalinkii madaxweyne xasan sheekh la magacaabay intaad qabto nin qabaa lala darsaahaan idhi allay lehe nin dadkana unaxaa dalkana unaxaaha kursiga fadhiistaan idhi haddana walxaa jira beraan u idhaaba male afka kii horan ku warannay waaye madaxweynahan rabnaan helnay madaxdaan rabnaan helnay wax inaan ku darannana waa rabnaa waxaan ku darannana ceeb maaha saan u filaa qofna ka xumaamayso marka waa mahadsan tahay waa gartay beelaha qaarkood shirarka hadda ay wataan magaalada muqdisho ayagana dabcan markaa shirka bilowdeen ayay fariisteen beelahaas maxaa ugu baaqaya iyo dowladdaba waxaan rabaa warkoodu inuu ahaado jidka curadka ka baxay warbeeliyo warka ninka la yidhaha ha la yareeyo haddaan la yareeyeyna sidii karan loo warramoy ha loo warramo ninka la yidhaahdo war ila soo xureeya dowladey garab aan ka helno dhulna la soo xureey waa war la yaqaano beelahana waxaan u filaa wax kale hadda ayagu kama maqnaba oo saan hadda beelaha u aqaano beeluhu waxooda waa haystaan walax dhiman waxaa ka jira karanlaa ka jiray maahane gacanta waa gaarta beelaha kale saan anigu ninka la yidhaahdo beledkan joogay marka waxaan u malaynaa inaan beel baahi sheegay aysan jirin oo karanla ahayn waa gartay bal gabagabadii maxaad u soo jeedinaysaa beesha karanle laf ahaanteeda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdaba maxaad ku baaqi lahayd oo fariintaada ugu dambaysa ay tahay waa mahadsan tahay hadafkeenu waa la dagaalanka cadowga al-shabaab waa inaan ciribtirna cadowgaas waa inaan baaqi madaxweynaha qaadano waa inaan meel kasta oo cadowgaas uu joogo wada jir aan ugu tagno karanlana sidiisaba colkaa laga kaasha jiray asaga ruuxiisa xoogaa habacsanaanaa jirtay maxay yeeday laakiin hadda waxaan u malaynaa toogaan labadi cadcadeedow qashay mar hadduu labadaas cadcad qashana waxa waaye ratiyaa loo rarahaa la yidhi hal dhabbow ku guuraa mar allaala markaan kusoo wareegno galhareer iyo ceelbuur iyo jacar iyo bargaan iyo tawfiiq iyo diriya dhammaan dhulkoo dhan waa gudbaynaa asaan ninka la yidhaha yay nimankii ku heraynaan leenahay biidnillaah madaxweynahana dareensan waa ku dugaashaynaahe waa ku dugaashaynaa gacantaadii midigeedaan nahay maxay aheeday waxaana uga dambeeyaa hadda anigu maadaama aan shirka aanan joogin akhyaartii iyo madaxdii karanlaha wiye kuwoodii ugu macnaha badnaayaa fadho gogasha dayax waan taageeraa guulaystaan leeyahay hadafkuna waa noo kiina
halkaasaa ninka la yidhaahdo maxamed dhabahaasayna joogtaa insha allah.